إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم، رمضان مبارك. kusoo dhawaada youtube channelka Zakiya Aadan. waxaa mahad u sugnaatay Alle subxaanahu wa tacaala. marka xigta waxaan u mahadcelinayaa dhammaan asxaabta ku xiran youtube channelka iyo inta daawanaysa. waa barnaamijkeenii fahamka soonka iyo ilaalintiisa xalqadiisa saddexaad. waxaan ku qaadan doonaa dhowr ciwaan. waxaana ugu horeeya shuruudu siyaam, shuruudaha looga baahan yahay soonka. 1. al-islaam, qof gaal ah marnaba lagama baahno in uu soomo. 2. al-buluuq, oo macnaheedu yahay qofka inuu yahay qof qaangaar ah. 3. al-caqlu, qof miyir qaba ama maskaxdiisa tamaam ay tahay. meeshaas waxaa ka baxaya qof waalan in aanan waajib ku ahayn ama aanan laga rabin soon. 4. waxaa la yidhahdaa qofka al-qudra in uu awoodo, uusan ahayn qof shayb ah oo aanan soomi karin, qof xanuun gaara qaba oo soonka u diidaya. 5. al-iqaama, qofka inuu yahay qof meel degan, ama al-muqiim inuu yahay qof meel degan oo aanan safar ku jirin, oo aanan diyaarad saarnayn, oo aanan dhul safar u maraynin inuu yahay. shuruudaha waxay ka mid tahay soonka looga baahan yahay. shardiga 6 wuxuu yahay al-khuluwu min al-mawaanici, waxyaabaha soonka mancinaya qofka inuu ka maran yahay ama uu nadiifka yahay, khaasatan dumarka oo kale. xaydkii ama dhiiggii caadadoo kale in ay ka nadiif tahay ama ay ka daahir tahay. sidoo kale damu nifaasi, dhiiggii umulnimada ama dhalmada markay dhashay kadib in ay iyadana daahir ay ka tahay. intaas haddii lagaa helo soonka waajib ayuu kugu noqonayaa. waxaan u gudbi doonaa ciwaankeena xiga oo ah mufsidaat as-soom ama mufatiraat as-soom, waxyaabaha soonka qofka ka burinayo. qofkii markii tiirarka soonka uu ku taagan yahay uu la imaado oo haddana la imaado shuruudihii oo qofka soonka ku waajibinayay ama uu kaga ansaxmayay, waxaa ku xigta qofka in uu iska ilaaliyo ama uu ogaado waxyaabahan soo socda. maxay tahay? 1. al-aklu washurbu camdan, qofka inuu si kas ah wax u cabo, si kas ahna oo wax u cuno isaga oo soon sheeganayo. 2. al-jimaac, xilli bil ramadaan ah oo maalin ay tahay in 2 qofood isqabta ay isku galmoodaanna waxyaabaha soonka burinaya ayay ka mid tahay, bal kafaara ayaa kuu sii waajibayso. 3. inzaalulmaniyi biikhtiyaarihi, qofka inuu asaga doorto in uu iska keeno manida. lagama wado qofka inuu seexdo uu riyoodo oo kale oo saas oo kaleeto uu isku arko mani inay ka imaato, balse waxaa lagala jeedaa si kas ah qofka inuu isticmaalo gacantiisa uu iskaga keeno. 4. maa kaana bimacnaa al-akli washurbi, waxa la macno noqon kara cunid iyo cabis. tusaale, adigoo sooman ayaa waxaa lagugu duray faleebooyinkan gulukooska ah. dabcan gulukooska waxay u taagan yihiin booska cunitaanka iyo cabitaanka. adoo sooman haddii faleebadaas lagugu duro macnaheeda maxay tahay? soonkaas wuu kaa buray. 5. ikhraaju dami bilxijaama, qofka dhiig in looga keeno isaga oo la toobayo. alxijaama maxaa la yidhaahdaa? toobitaan, jirka la sarsaraayo oo qofka laga toobayo. asigoo sooman haddii taas ay ku dhacdo, afdara alxaajimu walmaxjuum, sidaas ayuu ahaa xadiidkii. 6. attaqayu'u camdan, qofka si kas ah inuu matag iskaga keeno uu ismatajiyo isaga oo sooman. 7. khuruuju dami alxaydi wannifaasi, qofkii haweeneyda ahayd iyadoo sooman ama xilli hore ama xilli dhexe ama xilli dambe maalinkii ha ahaatee inay isku aragto dhiigga dhalmada ama dhiigga caadada midkood. 8. niyatul ifdaar, inuu niye ahaan niyeystay inuu jeclaan lahay ama inuu rabo ama inuu soonka furo inuu niyadda gashtay. dabcan hadduu maanta dhan cunto iska ilaaliyo, biyana uu iska ilaaliyo, soonkaas wuu ka furan yahay. sababtoo meesha waxaa ka baxay tiirkii ugu weynaay الركن الأول من أركان الصيام oo ahaa النية. marka hore soonku wuxuu ugu xirmayay inuu niyeysto, haddana wuxuu uga furmayaa ama wuxuu uga furmi karaa haddii niyeysto inuu furo uu ka furmayaa.
alriddatu can alislaami qodobka sagaalaad qofkii inuu shaki ama waxyaabo qaara diinta inuu ka noqdo kaleeto walciyaadu billaah isagoo sooman inuu arrintaas uu sameeyo taasna maxay tahay soonka waa uu ka buraayaa. intaas waxaa ooga baxnay ciwaankeenii ahaa mufadiraatu sawmi ama mufsidaat asawm. mufsidaatu sawm ama mufadiraatu sawm marka waxay leeyihiin shuruudo. shuruudaha maxay tahay qofka intaanu shay aan soo sheegnay haddii saddexdan xaaladood laga helo si sax ah ayuu soonka uga burayaa. an yakuuna caaliman qofka inuu og yahay waxaan hadduu sameeyo in soonka uu ka buraayo. tusaale jimaac ayuu si kas ah u sameeyey isagoo og inuu soonka ka burinayo, soonka waa uu ka buray. 2 an yakuuna daakiran inuu xusuusan yahay uusan hilmaanka ahayn sida qofkii wuxuu cunay ama waxbuu cabay isagoo ilowsan soonkiisa kama burin waa uu jiraa sababtoo meesha daakir ma aha oo maskaxdiisa yacni kuma borogaraamsana waxaan cun si kas u cun kuma borogaraamsana. midda saddexaadna waxay tahay an yakuuna mukhtaaran in shaygan asaga uu doorto kaskiisa wax ku qasba male cid u dirtay male kaskiisa inuu u maagay macnaha. halkaas waxaa ooga baxnay mufsidaat asawm shuruudihiisa ama muxaramaat asawmi waxyaabaha soonka xaaraanta ka ah. 2 qaybood loo kala qaybinaya. qaybta koowaad waxaa la yiraahdaa anwaac almufadiraati ama anwaac almufsidaati 9 qaybood oo hadda aan soo sheegnay. 2 jamiic almuxaramaat fi ramadaan wa ghayrihi wax allaale wixii qofka muslimka xaaraamka ah ama ramadaan ha lagu jiro ama lagu jirin macnaha. maxaa kamid ah way badan yihiin ilaa dhowr ay gaaraan. maxaa kamid ah alkadibu beenta min sifaat almunaafiqiin in ay kamid tahay xadiis saxiix ah ayuu nabi maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaatee looga soo wariyey idaa xadatha kadaba waxay kamid tahay calaamaat almunaafiqiin ramadaan iyo fii geyr ramadaan ma banaana. shahaadatu zuur marqaati kac beena inuu qofka sameeyo ama waxaanan jirin inuu ka marqaati kaco. alghiiba xanta oo aan aad ugu badannahay aayaddii ku jirta fii suurati alxujuraat ayna ahayd yaa ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kathiira min addanni ina bacda adanni ithmun walaa tajasasuu walaa yaqtab bacdukum bacdaa. 3 annamiima 2 qofood oo muslim ah in aad isku dirto adiga oo sooman xaraam ayay kaa tahay kuma banaana ama soon ha lagu jiro ama soon yaana lagu jirin. 5 alghishu fi jamiici almucaamalaati in aad sameyso khiyaano ama qish meel allaale meeshay doonta ha ahaato. dabcan xitaa waxaa soo hoosgalaya qodobkan ardada xilliga ramadaan haddii lagu soo aado ay imtixaan kala galayaan in ay qishaan walow ardayda ay diidayaan qishkaas in uusan ahayn qishka nebigu uu ka hadlayo balse xadiidka nebiga muxuu ku dhahay man qashanaa falaysa minna. dabcan qishka maxay tahay waa wax aanan lagu ogoleen oona kuu banaaneen ama lagu diidayo in aad sameyso kadibna si aanan lagu ogeyn ama si qarsoodi aana u sameyso. qofka in imtixaan uu qisho ama arday kale uu su-aal weydiiyo isagoo imtixaan ku jiro ama buug uu ka fiirsado ama taleefon uu ka fiirsado mamnuucay ka tahay. saasay tahay hadduu isku dayo inuu wax qisho waxay soo hoosgelaysaa qishkan caadiga ah. marka alghishu min jamiici almucaamalaati man qashanaa falaysa minna ayuu dhahay nabi maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. يتجنب المعازف والآلات واللهو والضرب qofka waxa uu ka fogaanayaa waxyaabahan waqtiga la isaga lumiyo ciyaaraha dhalinyarada ay waqtiga isaga lumiyaan waxaa kamid ah daaduuga ama laaduu dabcan ma aqaan macnaha sida lagu dhaho laaduuga ama daaduuga waxaa kale ama midka taleefanka lagu ciyaarayo ha ahaado ama midka sida caadiga fadhiga la fariisto lagu ciyaarayo ha ahaado. waxaa kaleeto kamid ah ciyaartan jazz in la dhahaa umaleynaya jazzka oo maxaa la yidhahdaa waxyaabahan kuuskuusan la kala warwareejinayo. dabcan wax allaale wixii soo hoosgalayo maxaa la yidhaahdaa ciyaaraha oo malaayacniga oo dhan isku dardar qofku way xaaraamay ka yihiin inuu sameeyo inta uu sooman yahay iyo inta uusan sooneyn labadaba isku dardar. intaas waxaa ooga baxnay muxaramaat asawm. haddaba saa ogeedeen xalqo walba waxa ay lahayd su-aal oo idinku reebi jiray inta aanan ka bixin. xalqadan su-aasha idin weydiinaya waxay tahay sheeg imise jeer ayaa lagu sheegay kelimada ramadaan qur-aanka. imise jeer ayaa lagu sheegay kelimada ramadaan qur-aanka dhexdiisa. muuqaalka lamida intaa ku kulmi doono waaquulu qawlii hada wa astaghfiru allahu lii walakum wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.